habeenkii xalay waxa uu Falastiin iyo dunida Islaamka u ahaa habeen mugdi ah. ugu yaraan 500 oo qof ayaa ku dhimatay, tiro kalena waa ay ku dhaawacantay duqeyn habeenkii Arbacadu soo galaysay ay Israa'iil ku qaaday cisbitaal ku yaala marinka Gaza, kaasi oo maalmihii ugu dambeeyay ay duqeymo aan loo meeldayin ka wadeen. dadka dhintay waxa ku jira carruur tiro badan iyo haween, sida ay muujinayaan muuqaalada ay tabinayso warbaahinta noocyadeeda kala duwan. dhimashada ayaa marba marka ka sii dambaysa sii kordhaysa. warbixintan waxaynu ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee halkaasi laga helayo iyo sida ay dunidu uga falcelisay xasuuqa ulakaca ah ee Israa'iil ay ka geysanayso marinka Gaza. Israa'iil oo duqeyntani geysatay ayaa laba war oo isku burinaya ka soo saartay. mar hore waxa ay qirteen in ay iyagu bartilmaameedsadeen cisbitaalka, jeer dambe sahkoodu dib ayaa uu kala xumaaday, waxaana falkan ay ku eedeeyeen ururka Islaamic Jihad oo ay Falastiiniyiintu leeyihiin. qaar ka mid ah hogaamiyayaasha caalamka ayaa cambaariyay duqeyntani, iyada oo sidoo kale madaxda bariga dhexe ay soo saareen bayaano adag. banaanbaxyo ayaa waxa ay ka qarxeen meelo kala duwan oo caalamka ah oo ay ku jiro gobolka bariga dhexe sida Urdun iyo daanta galbeed oo Israa'iil ay haysato. dalka Urdun ayaa baajiyay shir madaxeed la qorsheynayay in uu ka furmo caasimadda Ammaan, halkaasi oo la rabay in ay ku kulmaan madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxda Carabta. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Urdun Ayman Safadi ayaa waxa uu sheegay in kulankani uu qabsoomi doono kaliya marka dhammaan ka soo qaybgalayaashu ay ka midoobaan in la joojiyo dagaalka iyo xasuuqa ka dhanka dadka Falastiiniyiinta ayaa uu yiri. madaxweynaha dalka Turkiga oo qoraal soo dhigay bartiisa platform X oo hore loogu yaqaanay Twitter ayaa waxa uu yiri in la duqeeyo cisbitaal ay ku jiraan haween iyo carruur iyo dad rayid ah oo aan waxba galabsan waa tusaalihii ugu dambeeyay ee weerarada Israa'iil ee ka maran qiyamka aasaasiga ah ee aadanaha. waxaana intaasi uu raaciyay waxaan ku baaqayaa in la qaado tallaabo lagu joojinayo weerarada naxariis darrada ah ee aan hore loo arag ee Israa'iil ay ka geysanayso marinka Gaza. madaxweynaha dalka Masar Cabdulfataax al-Siisi oo sidoo kale lagu waday in uu ka qayb galo shir madaxeedkan ayaa si adag u cambaareeyay duqeymaha Israa'iil ay ku qaaday cisbitaalka ku yaala marinka Gaza. bayaan ka soo baxay dowladda Sacuudigana waxa lagu yiri waxa aan si adag u cambaaraynaynaa dambiga foosha xun ee cisbitaalka Al-Ahli Baptist kaasi oo ay geysteen ciidamada Israa'iil ee duulaanka ah. hogaamiyayaasha reer galbeedka ayaan iyagu Israa'iil ku eedeynin duqeynta ay kula kacday dadka rayidka ah. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron waxa uu si jees u yiri in la duqeeyo cisbitaal ma aha mid marmarsiinyo noqon karta. Joe Biden madaxweynaha Mareykanka oo bayaan soo saaray ayaa waxa uu sheegay in tacsiid tiraanyale uu u dirayo dadka rayidka ee halkaasi ku dhintay. ruushka ayaa weerarkan waxa uu ku tilmaamay fal dambiyeed ka dhana bini'aadantinimada, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee lagu magacaabo RIA oo ay dawladdu maamusho. afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushkuna waxa ay tiri Israa'iil waa in ay keento cadeymo muujinaya haddii aanay ku lug lahayn duqeynta loo geystay cisbitaalkaasi. wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan oo dhacdadan ka hadlayna waxa uu sheegay in dagaalka Israa'iil ee ka dhanka ah Falastiiniyiinta uu hadda galay heerkii ugu sarreeyay. in cisbitaal la duqeeyo ma aha arrin loo dul qaadan karo ayaa uu yiri, isagoo hadalkiisa raaciyay waxa aan rajaynayaa in aanu markhaati ka noqono tallaabo caalami ah oo wadajir ah oo lagu joojinayo dambiyada Israa'iil ay ka wado marinka Gaza. hogaamiyaha ruuxiga ee dalka Iiraan Ayatollah Ali Khamenei ayaa mar sii horeysay waxa uu Israa'iil ku eedeeyay xasuuq ulakaca oo ay u geysanayso Falastiiniyiinta ku nool marinka Gaza, waxaana uu ka digay cawaaqib xumada ay arrintani dhalin karto. Khamenei oo hadlayay talaadadii ayaa waxa uu sheegay in mas'uuliyiinta Israa'iil ay tahay inay wajahaan maxkamad la xiriidha falkii ay ka geysteen marinka Gaza ayaa uu yiri. qofna ma joojin karo xoogagga ka soo horjeeda Israa'iil haddii ay weeraradeedan sii wado ayaa hadalkiisa uu raaciyay. si kastaba ha ahaatee dhacdadii ugu dambeysay ayaa waxa imanaysaa xilli muddooyinkii la soo dhaafay ay Israa'iil duqeymo aan loo meeldayin ka waday marinka Gaza.